saaxiibayaal soo dhowaada maxaa ka soo kordhay kiiskii wasiir cabdirashiid janan waxaan soo helnay goobta uu ku xiran yahay wasiirku oon muuqaal iyo sawirraba ka helnay sidoo kale waxaan helnay goobta lagu haya ninka maamula oo sida gaarka u haysta cidda uu yahay iyo xogtiisa oo kooban waa tii shala aan idiin sheegay in wasiirku uu bad qabo dowladda Kenya uu u xiran yahay berrina lala kulansiin doono eheladiisa maanta oo ay ku aadanayd waqti aan idiin sheegay in wasiirka lala kulansiin doono oo la tusi doono eheladiisa ma la tusay eheladii xogtaas oo dhammaystiran baan idiin hayaa saaxiibayaal waxaan idinka codsanayaa dad badan baa ka walwalsan maqnaanshaha wasiirka oo xoga ka raba waxaan kaa codsanayaa muuqaalkan haddii uu soo gaaro qabo oo sii sheergareh leegna saar soo dhowaada saaxiibayaal mar kale goobta uu ku xiran yahay wasiir cabdirashiid janan waa saldhig ku yaala duleedka magaalada Nairobi meel bannaana ku yaala sawirkiisu wakaa saldhigaas uu ku xiran yahay waxaan rabaa sidoo kale inaan idinla wadaago ninka haysta oo uu u xiran yahay oo gacanta ku haya oo saldhigaa maamula cidda uu yahay saldhigan waxaa maamula taliyaha nabad sugidda magaalada Nairobi oo ah nin u dhashay beesha Garre gaar ahaan reer la yiraahdo Quraanyow oo ka tirsan Garre ninkaas baa gacanta ku haya siday ballantu ahayd maanta waxaa la rabay in wasiirka la soo bandhigo noloshiisa la xaqiijiyo maadaama wasiirka ay dowladda Kenya sheegtay inuu u xiran yahay oo gacanta ku hayso oo uu nool yahay oo aysan jirin batanba hal shakhsi oo qoyskiisa ama beesha Mareexaan ka soo jeeda oo noloshiisa maanta wasiir cabdirashiid janan xaqiijin kara marka laga tago inay Kenya xaqiijisay inuu nool yahay ayadu gacanta ay ku hayso saldhiga uu ku xiran yahay gacanta nabad sugidda uu ku jiro ayna doonayaan inay eheladiisa u soo bandhigaan oo tusaan shalay bay ballantu ahayd maantay ballantu ahayd inay ehelka tusaan markii ay tageen saldhigan oo magaalada bannaankeeda ku yaala oo ay rabeen in la tuso cabdirashiid oo goobta la geeyay saraakiishii nabad sugidda ahaa ee Kenya shir bay wada galeen cabbaar kadib ilaa maanta dadku say meesha u fadhiyeen waxay u sheegeen inaysan tusayn cabdirashiid jananna aysan arkayn sida awgeed ay iska tagaan marka odayaashii ka socday ehelkiisu waxay dhaheen war wasiirka maxaa loo haystaa maxaasan noogala qarinaya haddii uu nool yahay wuxuu yidhi wiilkii Garre ee saldhigaas haystay ninkaa waa nool yahay waxaa soo dacweysay maamulka Jubbaland baa soo dacweeyey maxkamad baana soo taagaynaa asagoo maxkamad taagan baad arkaysaane nilima tusayo ee batanba isaga taga goobta leeyahay sidii bay ooga soo noqdeen oo ay ooga soo tageen oo dib Nairobi ay ugu soo noqdeen markaan ka nimaano xariga wasiirka iyo xogihii ugu dambeeyay ee wasiirka laga helayo xaalkiisu halkaas uu maraya ilaa berri haddii war laga waayana kacdoon shacab baa bilaamahayo saraakiisha ciidamadii cabdirashiid janan shir jiraayid bay goordhow qabteen waxayna sheegeen ilaa caawa haddii ay war ka waayaan oo si rasmi ah bulshada loogu soo bandhigi waayo oo la sii dayn waayo wasiirka inay tilaabo sharciga qaadayaan waxaana durba ka bilowday xaduudda dhaqdhaqaaqyo ay samaynayaan ciidamadiisu iyo shacabka caraysan inkastoo ilaa maanta maamulka Gedo iyo maamulka Balad Xaawo iyo Kandoolowba ay ku dadaalayeen sidii ay u damin lahaayeen oo ay dadka u raali gelin lahaayeen oo ay dadka u qancin lahaayeen iyagoo hadba u soo gudbinayo xogo markaasi ay dadka ku dejinayaan laakiin waxaan kuu sheegayaa ilaa caawa haddii war rasmi ah soo bixi waayo berri dagaalkii ugu xumaaba xadka ka dhacayo iyo kacdoon weyn baa dhacayo taasna meel ku sii qorta siina wada fariintayda aan u diraya shacabka reer Gedo waxaa weeye war aragtidiina muujiya oo soo baxa oo dareenkiina muujiya shalay baa wiil ganacsada ah oo qaali ah oo reer Gedo qaali ku ah oo ninkii ugu ganacsi sareeyay ah baa inta Nairobi lagu dilay oo la jarjaray oo juwaan lagu riday baa laamiga meydkiisa la soo dhiga cid isweydiisayna male maanta haddii cabdirashiid janan aan ka aamusno oo aan fiirsanno oo aan ma aragtay aanan ka dhiidhin oo aanan ka dagaalamin waxay sababaysaa in maalin walba madaxdayada lagu ugaarsado Nairobi oo sida xoolihii maalinba mid la qafaasho waxaan leeyahay walaalayaal taleefanka keli kaca taleefanka keli ah oo aad ka wici kadhaan madaxweynaha Kenya waa inaad xabad ka bilowdaan xaduudda waa inaad rabshada ka bilowdaan xaduudda
وإن أو دريمه أود يباورك أو سوماليا كلية عبد الرشيد جنان أذن كان درين سينكرا إن كيسك عبد الرشيد جنان وحاد موداين بوستلا ساريو وحاد موداين مدحدا Soomaalida ay ka aamusayaan safaaradii Soomaaliya meesha ku taal wali kama hadlin wax kama raadin joog kama oran taliyihii booliska jooga waxa la lahaa asagu u xiran yahay oo asaga dacweeyay warbari bay ka tahay iyo iima xirna iyo waa ii xiran yahay midna ma oran dawladda Soomaaliya iyada mas'uul ka ah dhulka badda iyo muwaadiniinta Soomaaliyeed wali kamaysan hadlin Cabdi Rashiid Janan hadday ayadu iibsatay oo ay Kenya ka gadatay inay ummadda Soomaaliyeed u cadaysay ahay wali kamaysan hadlin wali maysa beenin wali maysa raadin walaalayaal waxay taasu ina tusaysaa in Cabdi Rashiid Janan uu Soomaaliya ka maqnay laakiin uu reerkiisa ka maqan yahay oo uu qabiilkiisa ka maqan yahay oo uu mareexaan ka maqan yahay bayna tusaysaa walaalayaal dalkan dawlad baa mas'uul ka ah dadka iyo dalkaba iyada mas'uul ka ah muwaadin kasta oo maqan iyadu xaq ku leeyahay haddii Cabdi Rashiid Janan ay dawladda Soomaaliya gadatay inay ummadda Soomaaliyeed u cadaysay yahay inay gadatayna waxa cadayn kuugu filan mahad salaad oo taliyaha nabad sugidda ah iyo Xasan Sheekh Maxamuud oo madaxweynaha Soomaaliya maalin walba miidiyahay taagnaayeen farmaajo waxay ku eedeynayeen iyo Fahad Yaasiin ikraan tahliil maqnaanshaheeda ikraan tahliil adinka qashay ikraan tahliil adinka haya ikraan tahliil iga maanta waxaa maqan wasiirkii amniga Soomaaliya wasiirkii amniga Jubbaland baa maqan nin saamayn iyo siyaasad leh baa maqan iyagoo ka hadlayo iyagoo goobayo iyagoo beeninayo iyagoo raadinayo midna maada arag Soomaa Cabdi Rashiid Janan Soomaaliya kama maqna wuxuu ka maqan yahay mareexaan baana Kenya xuduud la leh marka annaga iyo Kenya waa is arkaynaa waxaan leeyahay fadhiga ka kaca dawlad ay sugtaan ma jidho fadhiga ka kaca inaan dal iyo dawlad toona lahayn waxaad ku ogaanaysaa dawladda Kenya waxay leedahay Cabdi Rashiid Janan waxa soo dacweysay maamulka Jubbaland haye maamulka Jubbaland haday Cabdi Rashiid Janan dacweynayaan Cabdi Rashiid Janan Soomaali ma aha ma Kenyaatiba mideeda kale markay Kenya leedahay maxkamad baan soo saarayna maxkamad Soomaaliyeed oo qaranku leeyahay ma jiro maxay arintan uga dhidin weydo dawladda uga hadli weydo soo gunnimo iyo daalinimo iyo doqonnimo maaha nin muwaadin oo Soomaaliyeed baa leeyahay maamul Soomaaliya ka tirsan baa soo dacweeyay haye Kenya adinka haya miya haye xageed u gudbinaysaan annaga maxkamad saarayno annaga shaqo ka qabanayno oo ninkan ma dawlad baa u tihiin Jubbaland ma Kenya laga xukumaa mise Muqdisho laga xukumaa arinta maxay dawladda uga aamusanta maxay arinta uga hadleelaa